Maanta waxaan baranaynaa sida zip folderka loo sameeyo oo badanaana loo yaqaano archive. Marka archive-ka laba nooc u kala baxaa. Midna software lagu sameeyaa, midna computerka dhexdiisa laga sameeyaa. Marka waa zip folder. Marka zip folderka hal file ayaad waxaad ka dhigaysaa waxyaalo badan aad meesha aad ku shubtay. Hal file noqon karaa, then email-kaad ku diri kartaa, ama flash disk-ga ku shubi kartaa, ama hard disk-ga, ama qofaad network ahaan kula share gareyn kartaa. Marka midka program-ka ah, kaasi password ayaa lagu xiraa haddaad rabtid. Haddaad rabinna password la'aan ayaad qofka u diri kartaa, ama computerkaaga meel ka mid ah ku kaydsanaysaa. Marka badanaana waxyaalaha zip-ka laga dhigay ama la cadaadiyey viruska kuma dhaco si fudud, especially kuwa password-ka lagu xiray. Marka daawasho wacan. Desktop-ka markaad joogtid, right click baad siinaysaa, new waad ku dhufanaysaa, then meesha ugu dambeyso kan kusii xigo ka koreeyo compressed zip folder-kaas ayaad ku dhufanaysaa, then magacaad u bixinaysaa my files. Shubto waa inaad drag and drop aad samayso. Sida kasoo qaad folder-kan baa qabanaysaa, waad jiidaysaa, then waad dhex dhigaysaa. Cinwaanka faylasho dhan saasaa ugu shubaysaa. Haddaad rabtid sawir ha noqdo ama applications ha noqdo, then cancel aa leedahay, waa xiraysaa, then email-kaad taas ku diraysaa, ama flash disk ayaad ku shubaysaa, ama saa jeceshahay samaynaysaa. Taasi waa mid. Haddana waxaan baranaynaa oo kale sida software ahaan sida zip file loogu sameeyo. Marka software-ka computerka kuma jiro, waa soo download garanaynaa. Marka linkigana hoos ku qoran yahay, ama ciwaanka aad gelaysid aad kasoo download garanaysid. Marka waad ku dhufanaysaa browser-ka, Firefox-ka gal. Marka Firefox-ka uu ku furmo, meeshaas waxaad ku qoraysaa ntanedown.com aad galaysaa, then waxaad ku qoraysaa program-ka la dhaho WinRAR. WinRAR-ka zip files ku sameeyaa, archive-kan uu sameeyaa, iyo file type noocyo badan. meeshaas waxaad ku qoraysaa box-ka quick download search-ka, waxaad ku qoraysaa WinRAR-ka markuu ku soo baxaad ku dhufanaysaa. Marka iska hubi markaa program-kan aad soo dejinaysid computerkaaga in system type-kiisa iska fiiri. System type-ka computerka 64-bit iyo 32-bit buu noqon karaa. Marka sidee ku ogaanaynaa system type-ka aan rabno inaan soo download garayno software-kan? Start button-ka ku dhufanaysaa, then computer right click siinaysaa, properties aad leedahay. Properties markaa ku dhufatid, system information-ka ku soo baxayo, then meesha hoose system meesha ku qoran tahay hoosteeda waxaad ku arkaysaa system type. Meesha falaarta aan ku taabanayo 64-bit operating system. Marka 64-bit kaasi wuxuu noqon karaa 32-bit buu noqon karaa. Marka waa operating system-ka. Application-ka marka 32-bit iyo 64-bit bay u kala baxaan ayagana. Marka nooca aad rabtid waa inaad kusoo shubataa. Marka haddeertaan 64-bit baa ku shubanaynaa, then download baan leenahay. After that waxaad ku dhufanaysaa save, then download-ka waa bilaabanayaa. saa ka aragtid download-ka uu dhameeyey. Then download-ka markuu dhameeyo, meesha kore Firefox-ka
taskbarka geeska isheega midigta download buttonka ku dhufanaysaa, then folder kusii dhufanaysaa. wuxuu ku geenayaa meesha downloadka uu kusoo download gareeyay. then waxaa sameynaysaa double click baa siinaysaa, softwareka ku shubeysaa, then yes aa leedahay. marka softwarekani saan idinku sheegay zip folder ku sameeyaa. marka associate WinRAR with intaan oo dhan meesha tigta saaran ayuu sameeyaa, furaa. qaarkood wuu sameeyaa, qaarkoodna wuu furaa. Okay, zipka waa ku jira 7z waa ku jira, iyo maxaa kale jar ku jiro, rar ku jiro, iso waa ku jiro. marka file type waa noocyo badan yihiin. marka kadibna marka okay ku dhufanaysaa, dan baa leedahay. dan waa iska xiraysaa, daaqadana iska xir, tanna iska xir. dan waa kana markii programka lagu shubo wixii zip file ahoo dhanna saana isku bedelayaan. double click siinaysaa, waa furaysaa. ama file aa kusoo dari kartaa, add files to archive aa dhigi kartaa, ama extract aa dhigi kartaa. extract waa maxay? fileka meeshan ku jiro folderkan ayaa extraction ayaa ku sameynaysaa. extraction meeshuu ka saaraya, zipku ka bixinaya, then meel kale computer kamid ah ku save garaynaysaa. extract to baa leedahay, then locationka ku dhufanaysaa haddii flash disk uu yahay, ama computerka meel kamid ah hadduu yahay. marka computerka qaybta ay sheegeen desktopka ayaan dhigaynaa. extractionka desktopka ku samey. wuxuu leeyahay confirm file replacement. okay, marka folderkan wuu yaalaa meesha. marka waxaan leenahay yes to all ama no to all baa ku dhufanaysaa. hadduusan jirinna waxaa leedahay maba ku weydiinayo. marka waa kaa saasa extractionka loo sameeya. marka kasoo qaad waxaa soo download gareynaynaa file zip gareysan website-ka barashada kasoo download gareynaynaa, ama app-kaaga kasoo download gareyn kartaa. haddaa geshid barashada.tk, then home page-ka markaad joogtid hoosa u baxaysaa qaybta footer-ka. buttonkan practical file-ka ku dhufanaysaa. so meeshaas file ku jiro oo zip gareysan. marka filekaasaa rabnaa inaan soo download gareyno, kadibna extraction aan sameynaynaa, kadibna waa zip gareynaynaa, then password aan ku xiraynaa. safe aa leedahay. okay, wuu dhameeyey. marka sawiro waaye. sawiradaasaan rabnaa inaan marka hore fileka online hadda qaarkood marka lagu soo diro, ama markii ama aad sameynaysidba, waa inaad extraction ku sameyn kartaa, zipna aad ku sameyn kartaa. marka saa ula soco. marka deertaan kan website-kan kasoo download gareeyay, waxaan sameynaynaa marka uu zip gareysan yahay, zipkan ka saaraynaa, then zip aan haddana gelinaynaa. after that waxaan ku xiraynaa password aan ku xiraynaa. marka fileka waa kana images ku qoran, double click siinaysaa, then folderka ku dhufanaysaa. extract to waa leedahay. then waxaad ku sameynaysaa desktopka dooranaysaa save to desktop, ama meesha aad rabtid computerka ayaa ka dhigan kartaa. then okay aa leedahay. then waa iska xiraysaa. marka fileka desktopku noo geeyey. ka aragtid waa kana folderka images. haddaa furtid sawiraha ku jiro. marka haddaa aragtid folderkan naftirkiisa, markaad furtid dhexdiisa waa zip gareyn kartaa. adoo gudaha ku jiro waa hareynaysaa, waxoo dhan aad dooranaysaa, ama waxaad sameynaysaa midka ugu horeeyaad dhag siinaysaa, click baa siinaysaa, dan kan ugu shiftiya qabanaysaa, kan ugu dambeeya taabanaysaa.
waxa dhan hal mar ay ku doorsamayaan. Ama waxaa samayn kartaa control A baad taabanaysaa, control plus A, then waxaa leedahay right click markaad dhahdo add to archive baad ku dhufanaysaa, add to archive, then images archive name-ka waa ka bedelaysaa, archive name-ka waa ka bedelaysaa, waxaa leedahay sawiro, then archive format-ka marka muxuu yahay marka waa file type-ka waaye, okay, default-iga waa rar, so midka kale ku xigan waa rar4, then kan rabno waxa weeye waa zip, okay, zip-kaas anaga rabnaa, then zip-ka maxaan ku sameynaynaa meesha ugu hooseysa haddaad fiirisid ee dhankaaga ee midigta set password, okay, password ku xiri kartaa, set password, then password-ka waxaan leenahay 1 2 3 ama password adiga ku siraha ku xiri kartaa, qasab ma 1 2 3 inaad geliso. Marka qaybtan wuxuu leeyahay organize password waxaa la dhaho, marka taasi uma baahnid, haddaad rabidna waad organize gareyn kartaa password-yadaada, okay waa leedahay 1 2 3 baa haddana ku celinaysaa, re-enter password-ka ku celinaysaa, then okay waa leedahay, apply waa leedahay, then waa kana marka wuxuu sameeyey zip file sameeyey, right click aan siinayaa, meeshaan rabaa inaan ka dhex saaro, right click baan siinayaa, waxaan ku dhufanayaa cut baan ku dhufanayaa, cut markaan ku dhufto desktop-kaan tagayaa, meel cidlo ah, right click aan siinayaa, paste baan ku dhufanayaa, then waa kaa waxaan sameynay sawiro baan sameynay aan zip gareynay, then double click haddaan siiyo waa kuwan marka sawirada, marka extract markaan haddaad dhahdid password ku weydiinaya, okay, right click aad siinaysaa, then desktop aad dooranaysaa, desktop-ka markaad dooratid new folder aad u sameynaysaa, sidee new folder ugu sameynaysaa, shift yaa qabanaysaa, control N baad taabanaysaa, waa shortcut on the keyboard, okay, ama meesha ka koreyso desktop-ka ee dhanka midigta new folder aad ku dhufanaysaa, then folder cusub aad u sameynaysaa, folder-ka wuxuu leeyahay sawiro, okay, sawiro, then okay waa leedahay, then password-kii ku weydiinayaa, password-ka geli, enter password 1 2 3, then okay waa intaa, marka saasaa wax loo zip gareeyaa, extraction-na loogu sameeyaa, marka ii sheeg practical-ka sameey.